markana afgooye isla munaasabada kowda luulyo waxaa xalay lagu qabtay magaalada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. wariyayga inoogu soo warrama magaalada afgooye Cabduuli Cali Olan ayaa inoo soo warramay. munaasabadan oo ahayd mid lagu weyneynayay 59 guuradii ka soo wareegatay xornimada iyo israaca gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ayaa lagu qabtay degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana munaasabadan soo xaadiray mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada afgooye. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada afgooye ayaa bulshadii soo xaadirtay xuskan uga sheekeeyay ahmiyadda ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhiso kowda luulyo. 59 sano guuradii israaci labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya iyo xorriyadii Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay waa taariikh lama iloobaan ah. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ayaan u hambalyeeynayaa meel walba ay ku sugan yihiin. waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa bulshooyinka gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan kuwooda ku nool degmada afgooye. waa habeen jiideed calankan rag baa u soo dhintay waxaa laga rabaa raggii u dhintay in loo duceeyo ragga joogana ay ilaalshadaan calankan dhiig badanaa loo huray dhibaato ku yimid kuma imaanin jiljilaac kuma imaanin inta ka soo qayb gashay heer gobol iyo heer degmo ururada bulshada oo dhan ciidamada qalabka bacd 59 sano ayaa ka soo wareegtay sanad guuradii kowda luulyo maanta cawada waxaan u taaganahay farxad oo faraxsanahay waxa waaye kowda luulyo ka soo qayb galnay maanta oo dhan aan u taagnay caawadan odayaashii deegaanka haweenka degmada ka xorownay markii aan ka xorownay ay tahay 6 saac waa xilligii calanka jamhuuriyadda Soomaaliya laga taagay Soomaaliya waa xilliga aan halalnay xornimada Soomaaliya ay soo gacan gashay waa xilligii aan ka baxnay gacanta gumaysiga waa xilliga aan u baxnay dawladnimo caalamka laga aqoonsan yahay waa xilli taariikhiya waa xilligii ay maaragtay Soomaaliya ay ku soo noqotay caalamka. waxaan ogsoonahay kowda luulyo waxa ay ka tahay Soomaaliya waa wax la wada ogyahay wax la soo koobi kara ma ahan. waxaan leenahay waa habeenkii aan adduunka ku soo biirnay. saacadda markii ay soo gaartay 12 saqdi dhexe ee xalay ayaa ciidanka booliiska salaan sharaf ka gudoomeen mas'uuliyiinta waxaana la saaray calanka jamhuuriyadda Soomaaliya. Cabduuli Cali Online TV caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.